Dhaqan ay soo saareen urur-diimeedka Al-Jamaaca Al-Islaamiyya ayaa ahaa mid ay uga jawaabayeen hadallo iyo eedayn ay u jeediyeen qaar ka mid ah culimada iyo bulshada xaafadda Waabari ee magaalada Garowe ee caasimadda Puntland oo culimadan ku eedeeyay inay kicin iyo dhibaato ku hayaan bulshada xaafadda Waabari waa sida uu sheegay Sheekh Cabdifataax Xuseen Yuusuf oo ka mid ah culimada Jamaaca Al-Islaamiyya asagoona beeniya warkaasi sidoo kale wuxuu baaq u diray dawladda Puntland in ay wax ka qabato dhibaatooyin uu sheegay in lagu hayo Al-Jamaaca Al-Islaamiyya shirkan jaraa'idna saaka wuxuu quseeyaa waa ka tabatag iyo beenin war saxaafadeed shalay laga soo saaray xaafadda Waabari ee magaalada Garowe shir saxaafadeedkaas oo ku saabsanaa kicin bulsho propaganda iyo ka been sheegid xaqiiqo jirta kaasoo amniga wuxuu dhimaya waxaanu nahay qayb ka mid ah odayaasha degan xaafadda Waabari waxaanu nahay dadka laga been sheegayo oo maartay leeyahay amniga ka soo horjeedaan waxaan ka warqabnay magaalada Garowe maamul baa ka jira waxaana shaqeeya laamaha kala duwan oo amniga dhamaantood ma jidho waxaan maamulku ka warqabin oo amni darro ah oo magaalada Garowe ka jidha oo xisbideeneed gaari oo ka warqabo bulshadana uga digo ma jidho waxaan ku baaqaynaa guud ahaan iyo gaar ahaan nabad ka Jamaaca Al-Islaamiyya ahaan hor iyo gadaalna nabad baan la ku yaqaanay kuma jirno xisbiyada ama dareeray ama dagaalka soo galay ama haatan gacanta ku haya ama qorsheynayo kuma jirno waxaana la ku yaqaanaa nabad xasilooni iyadaan insha Allah taala daa'imi doonaa waxaan marna laga suulin ismaan dhaafka culimada Puntland dhexdooda ka jira horaanna waa wax soo jiray weeye waana jiri doonaa waana maar dabeecad diiniye weeye in dadku iskhilaafayaan meesha marka khatarta leh waxa weeye dad diin u nasab sheeganayahay oo culummo isku tilmaamayahay inay ka qayb qaataan propagandada kicinta ololaynta mataqaana fasaadka ku baaqaan dadka dhiigooda in la daadiyo ku baaqaan darisku inuu isturiyeeyo shaar walba ha u gashadaan hawna u adeegsadaane wax noocaas dad culummaha inay ka shaqeeyaan da'bi culummo ma ahan dhaqan islaamna ma ahan maartay hidihii dhaqanka Soomaaliya soo banaana wax ka fog weeye waxaan leenahay oo ugu baaqaynaa bulshada reer Puntland gaar ahaan reer Garowe ka jamaaca ahaan waxaanu nahay dad islaama takfiir maahin khawaarij manihin mabda'ooda masjidno cid kuma xadgudubno kala duwanaanta aanu kala duwannahay annaga iyo Jamaaca Al-Ihtisaam ku kala duwannahay aragtida diineedii wax keeni kara inay khasbaan oo adeegsadaan hay'ado dawladeed ama adeegsadaan kicin shacab ama adeegsadaan hab qabiil ma ahan halka inay gaadhaan lama rabin waasa ay dhacday nasiib darro bay ku ahaatay in arrinkaas u dhacday oo culimada ka suurowday waxaas oo dhan xaafadda Waabari waa xaafad nabada dad wada dhashay baa degan masaajid baa ku wada yaala inta idin muuqatay yarta la soo abaabulay si walba lagu keenay bulshadu ma ay aha warkii baxayna shalay been abuur buu ahaa war la iskala warqabay ma ahayn war xaafaddu u dhan tahay ma ahayn masaajid baa ku taala goobo waxbarasho ay leedahay dadkaas aanu ka midna nimanka olaha wada waa Jamaaca Al-Ihtisaam magaalada darafkan ka deganay maana daraf kale ka degan yihiin waxaan soo marnay Puntland ay soo marday xilli al-Ittixaad loo yaqaanay inay ka soo jeedaan Yuhuudda ama shaabad ay leeyihiin ama diin khaldan ay wadaan yaa la soo maray ismaan dhaaf iyaga iyo bulshada xilliga jira dhex galay buu ahaa waa laga soo daawoobay waxaan nasiib darro ah inay iyagu dib arrinka uga shaqeynayaan oo hadda dad leeyihiin waa khaldan yihiin oo wixii ka mabda' duwanaada ay weerarayaan wasiilo kasta oo fool xun ay ku weerari karaan ay ku weerarayaan waxaan u soo jeedinaynaa culimada diinka Soomaaliyeed xasilooni iyo nabadba ina deeqda gaal iyo islaam nabadda wow gobol nasteexaad ninkii nin diin ku dhaamaahay barxadda ha yimaado mar horena baaqa waa soo jeedinay hawadan soo gelinay waxaan leenahay barxaddan fadhinaa diin darro ka weynu ma jidho in daris walaala alla isku hor keeno dhamasyo la isugu dhiibo dhagax tuurkooda la qorsheeyo diintooda la dhacaniyo yani gaf diin laga galo qof culimo khatar uu ku dhaco taa ka weynu ma jirto nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa laga wariyay si sugan muslimku waa midka muslimiinta kale ay ka nabad galaan af iyo adin weeye af iyo adinkii laga nabad galo yaa muslim quman ah ee wadaad ordaya waxa weeye oo rooro hawada maraya dadka isku diraya ka soo duulaya xaafadda geeskeeda shanaad haween iyo ciyaal ama kharash ama haybsi ku ururinaya
ka hor keenaya walaalahood ka been sheegaya kaas da'ab culimo ma ahan waxaan leenahay laga waantoobo wax anagu aan ku dhaqannahayna ma ahan guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaan ka soo horjeednaa wixii shala dhacay ee xaafadda Waaberi laga abaabulay ee shir saxaafadeedka lagu sheegay kicinta bulsho ahaa waa ka digaynaa inaan cidna dhaqan gelin laamaha dawladdu waxay ka warqabaan waa asbuuci afraad oo aan report keenno oo la iska horkeenid bulshada inuu ka socdo xaafadda haday tahay qaybta haday tahay gobolka haday tahay salagada bilayska haday tahay laamaha CID-da dhammaan xogta waa la socday wax la filayay bayna ahayd waxaan isleenahay intay qorsheeyeen yani ururdiinadka ictisaam dhibkay qorsheeyeen xaafadda inuu ka dhaco ma dhicin laakiin wax yar baa laga taataabtay waa u suuroobi weyday dawladda soo faragelisay iyo dadkay ku duulayeen oo iskala bixin waayay iyo bulshada iyo foolxumada aqbali waayo ka hor timid intaas oo dhan marka la isku daro waxay qorsheynayeen barbaa socon weyday waxaan leenahay cid walba oo nabadgelyada Garowe ay qusayso arintaas ha ka hadasho cidii madhab diineed isku haysa masaajidooda ha loo diro hana loo garsooro ha la ogaado cidii nabadgelyada khalkhal ku haysana gacmaha ha laga qabto cidii cid ku khasbaysa caqiidadeyda rumeena ha ka waantoobaan Puntland kooxa qaadiriya baa jooga laguma khasbi karo fikirka ictisaam qaata jamaaca islaamiga joogta laguma khasbi karo aragtida ictisaam qaata salafiya joogta laguma khasbi karo ictiqaadkiina ka gooro kayaga uga guura dadka nabad baa walaalaysa qof walba wuxuu ictiqaadinayo ka diin dhiganayna khaas buu leeyahay khaasatan annagu waxaan nahay jamaaca nabadeed jamaaca diineed nabadgelyan hore uga soo shaqeynay haatan ku taaganahay dibna uga shaqeynaynaa ma ahin khawaarij aragtideedna ma jidho walaalaha wadeen abuurka naga sameeya oo miidiyaha taagan oo hadba inta soo abaabula dhowr qof oo miyi ka keeneen oranaya dhagax tuur sameeya inta walaalaha ku hawlan waxaan leenahay walaalayaal barxadda imaada walaalayaal masaajidda imaada walaalayaal wada hadal ogolaada hadaad ogsoontiin aragti diineed ee guracan hadaad ogsoontiin inay jidho naseexa la idin mudan umada oo naseexeeya annagana sidaas oo kale naseexa naga mudantiina waa idin naseexaynaynaa laakiin waa la soo dhaafay heer qabiil la kiciyo xasaasiyad jifiyad la abuuro xaafadaha la kala sheegto abtiris wax lagu raadiyo ama laaluush la baxsho foolxumo hawada la soo mariyo waa la soo dhaafa cid ay qusayso laamaha amniga isimada iyo nabadoonnada waxaan leenahay jamaacadaasu horay waxay u geysan kareen ummadda Soomaaliyeed waa u geysteen wax dad soo laayay iyaga nagu jira wax haatan siyaasadda ku dhexrafanaya iyaga nagu jira wax gacmaha la iska hayo bulshada meel walba ka caabanaysana iyaga jira waxaan leenahay inta ayagoo ah haddana nabad ku soo dhawaada dhiga qoriga dabka xilliga dhigi lahaydeen baa la joogaaya dhiga bulshadeena u tura ha u qaybinina afkaar iyo aqaa'id ha u qaybinina ku soo dhawaada barxadda iyo wada hadal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aadan xasan aadan ar TV-ga caalamiga Somali Cable Garowe shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha